wasiiro xildhibaano mas'uuliyiinta gobolada dalka qaar ka mid ah iyo guud ahaanba qaybaha kala duwan ee bulshada Togdheer ayaa soo camiray hadhimo sharafeed meeqaamkeedu sareeyay oo madaxda gobolka iyo degmada Burco ay ku soo dhaweynayeen kuna maamuusayeen qurbajooga gobolka Togdheer munaasabadan oo badnayd heesa riwaayado ciyaar dhaqameedyo iyo madadaalooyin kale isla markaasna uu si toos ah u tabinayay telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa laga soo jeediyay dhiirigelin hadallo isugu jiray dhiirigelin iyo dardaaran loo jeedinayay xubnaha qurbajooga iyadoo ay halkaasna ka soo jeediyeen maamulka gobolka Togdheer iyo degmada Burco xildhibaano gudoomiyaasha shirkado ganacsi gudoomiyaha naadiga halkaraan wasiiru dawladda qorsheynta qaranka iyo wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Cali Marreexaan dhammaantood waxay qurbajooga ku ammaaneen kaalinta ay horumarka dalka kaga jiraan iyagoo ku dhiirigeliyay inay gobolkooda u soo jeestaan fariin u diray qurbajooga kale ee weli dibadda ku maqan gobolka Togdheer iyo guud ahaan Soomaaliland inaan ku soo dhaweeyno mas'uul hanaqaya aniga oo sanadkii saddexaad inaan qabanno xafiidan ku soo dhaweeyno qurbajoogeeda labadii sano hore waxaan ku qabanay tababarasa sanadkana waxaan ku qabanay waqtiga Burco waxaan hanaqayaa in loo soo dhaweeyo qurbajooga dabcan waa cid walba oo jecesha mas'uuliyiinta laakiin anigu alla si gaar ah xafladda u soo qabanqaabiyay inkasta nolol saabtan saabaan muxuu qurbajooga waxaan idin haynaa qalbi furan kalgacal badan wax badan baa dad kateen abaaraha waxaan ku colaadaha wax walba dalka doorashooyinka ilaa wax walba ka qabtan waliba abaalgudna madaxweynaha reer qurbajooga reer Togdheer ku meel dawladdu waajibkii ay lahaayeen way ka soo baxeen inuu sanad kasta idin qabno xafladda noocan oo kale ah qiimaha aan leedahay iyo sharafta aan leedahay iyo sida noola culus yihiin ayay muujinaysaa inaan sanad kasta xafladii qabo waxaa lagu furnaa waxoogaa tashuusha laba taariikhod baa lagu socdaa taariikh dadkaanu la qabnaayo waa taariikhta badda ee Madafa tu kala hargeysa baa lagu socotay laakiin waxaan unika ballan qaadaynaa aniga iyo maayarka iyo bahda wasiirka ku abtirsata gobolkani inaanu taariikhda hargeysa joojino in halkan lagu yimaado oo ay wixii laga rabay hargeysa halkan laga helo waxaan idin diyaarinaynaa dadka tagayeen waxaan idin diyaarinaynaa wixii hargeysa ka leeyahay waxaan idin diyaarinaynaa wax kasta rabtaan soo dhawaada anigu waxaan leeyahay qurbajooga nala xoodaansha nala qabta hawsha waanu idin soo dhawaynaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin xafladan oo xafladaad aad u qiimo badan oo fagaar ahaantaa laga ay buuxiyeen qurbajoogii reer Togdheer ee daafaha dunida ku kala noolaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan caawa kala soo qayb galo xafladda aad iyo aad qiimaha badan leh sharafta badan leh anoo ugu horreyn uga mahad celinaya qabanqaabiyayaashii xafladda waayo qurbajoogu marka aynu dibadda u dhoofno weligeena aan qurbajooga ayna halkan jooga waa ogtay sida laynoo soo dhaweeyo iyo sida laynoo karaameeyo iyo sida laynoo sharfo markaa way mudan yihiin xafladdan iyo xaflado badan iyo soo dhaweyn badan munaasabadahan lagu soo dhaweynayo qurbajooga oo sanadkiiba mar lagu qabto gobolka Togdheer ayaa lagu gudoonsiiyay buugaag naadiga halkaraan iyadoo sidoo kalena abaalmarino iyo shahaadooyin sharaf iyo aan noocooda hore loo arag lagu gudoonsiiyay wasiir Cali Marreexaan iyo xildhibaan Mubarak Bidhi Mustafa Cismaan magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Burco.